bismillaah asalaamu calaykum magacayga waa deeq muxiidiin deeq soomaali waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii ayagoo bannaan baxaya 25 Diseembar uu weerarka kusoo qaaday sarkaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed waana la xiray waana la jir dilay intaas ninkii nagu sameeyay wali sharciga lama horkeenin wali waxaa nagu maqaalo ah in lacagana la siiyay lana dilacsiiyay waxa soo korortay dhowr maalmood ka hor ayaan waxaan xareystay fiisa dalka Turkiga shalay galab ayaa waxa ay soo wacay taliyaha saldhigga degmada Cabdicasiis Macalin Aadan wuxuu igu wargeliyay dukumiintigeyga inuu saldhiggiisa yaalo oo aan soo doonto markii aan weydiiyay waxa dukumiintigeyga saldhiggiisa geeyay wuxuu ii sheegay in safaaraddu halkaas keentay waxaa wacay amsad waxaan kusoo confirm gareeyay baasaboorkeyga in safaaradda ay kasoo qaateen ciidanka booliska saake ayaa lagu warceliyay taliyihii saldhigga degmada Cabdicasiis wuxuu noo sheegay baasaboorkeyga in loo gudbiyay saldhigga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaan sidoo kale xiriir la sameeyay qaar ka mid ah wasiirada dawladda ilaa ay haddana wax war kama hayno waxa igu soo dhacayay 24 saac ee la soo dhaafay telefoon la igu handadaayo oo ciidanka dad ka tirsan ay soo wacayaan haddii aniga dalkayga sidaas la igu yeelay halkeen cadaalad ku heli kara anigu dambiilo mihi qof ma dilin hanti ma xadin waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo fikirkiisa cabiray fikirkeyga inaan cabirano waa xaq dastuuri oo aan leeyahay shalay waxaa la ii dilaayay maxaad u hadlaysay maantana waxaa la ii daba socda oo dukumiintiyadeeda loo qaadanaya oo la ii handadaaya maxaad u dhiman weysa waxa ayaan darro ah run ahaantii dowladii Soomaaliyeed ee aniga amaankeyga inay sugto ay ahayd maanta nafteeda inaan uga cabsanayo oo ii handadayso oo shalay la ii dil rabay oo maanta dukumiintiyadeeda la qaadanayo in la ii dilan la iigu handadayo